بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان. ما أنت ومالين خميسة تاريخ وكوي لباتن كان نوفمبر لما كنت ما يسجل مقعي واشي عبد القادر شيخ محمد شيخ أبو بكر شيخ سومو أفينك قولها بود علماء صوماليات ولا ليالو حانج على إسلاساكي إن أهلا وذاقو كليب ككن وأن أجدنا يدمان أمد صوماليات قارهان هير مقدشو sababtu arrintan aan maanta u duwana waxay tahay badbaadin la badbaadinayo caqiidada saxda ah iyo in dadka la istireensiyo in la xisaabtamo. walaalayaal waxaa isoo gaartay oon ka arkay telefishinka qaranka soo dhigaya ninka la yiraahdo Sheekh Umul inuu biri garoonka injineeriso rahimahullah inuu muhaadaro ku dhigayo afkiisana uu ka yiri waxaan dhigayaa muhaadaro muqdisho aan u dhigayo kuna saabsan waxyaabaha keena masiibooyinka iyo waxyaabaha lagu cilaaji karo. waxaan rabaa marka inaad dadka Soomaaliyeed maqlaaya ama idaawanaya aan la wadaago dhibaatooyinka waxyaabaha keena in la diraaseeyo sax waay, wixii lagu cilaaji lahaa in la helana sax waay, laakiin waxaa la rabaa dhibaatada noocyada horta in la isla fahmo. dhibaatada Soomaaliya haysata waxa ugu weyn badan waxa waaye dagaalada sokeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay ee fikirka diiniga ku dhisan. qofka waxa la rabaa marka waxaan loo sheegaa inaan fiirino khalfiyaadkiisa. dadka Soomaaliyeed waa dad muslima boqolkiiba boqol laga soo bilaabo zimika nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay ahayd dad sunniyiin ah, dad madhabkooda Shaafici ahaayeen hadii ay soo xilligii madaahibta ay soo baxeen laga soo bilaabo 204 oo geeyo imaam Shaafici 150 ay una dhashay waxay ahayd dad Shaaficiyiin ah oo hijriga ah markaas ilaa maanta laga soo gaaro maanta. dad waxay ahayd ahlu sunnah oo ahlu caqiidadoodna ay tahay caqiidatu ahlu sunnah wal jamaa. dad waxay ahayd ahlu dariiqa ah ilaa laga soo gaaro lixdameeyadii oo ay soo bilowdeen khawaarijtu. walaalayaal, haddaba maxay tahay sababta aan kilibkan u keenayo? waxa waaye sababa soo socdo. koow in laga digtoonaado iyo inaan dib taariikhda u barano iyo waxa soo socda inaan fahanaa. ninka la yiraahdo Umul mawaaqiftiisa ila taqaanin anuguna aan ogahay, asigu naftiisuna ogyahay. waxaa kamid ah in uu dadka Soomaaliyeed intooda badan oo ahlu duruq ah ama suufiye ah agtiisa gaala ka yihiin oo masaajidooda amiidadka la geey karin laguna duka karin ayuu goobo badan ka cadeeyay. labo, wuxuu dhiirigeliyay dadka ahlu sunna wal jamaa ah meel kasta ay joogaan wixii khawaarijtu ay ka dishanay khudbooyinkiisa ayay kula dhiiradeen. waxaan leeyahay marka masiibada ka weynta waaye in qofka caqiidada laga fasahaadiyo oo qofka caqiidadiisa la fasahaadiyo. waa ogtii mawaaqifta Umul waxaa kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam afkaygu ma karee sidaad ogtihiin xaqiraad weyn oo geysta in nabiga la xaqiro waxay tan waa garan kartiin. mawaaqiftiisa waxaa kamid ah in uu xaaraan ka dhigay inuu xalilay oo xalaal uu ka dhigay waraabaha. mawaaqiftiisa waxaa kamid ah dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha soo bara mid kamid ah asagoo masaajidkiisa jooga inuu dhiirigeliyay dagaalkii lagu hayo oo khawaarijtu ku hayso. haddaba walaalayaal, Umul ma wuxuu bedelay in suufiyada gaala ay yihiin fikirka ama kalaabta ma ka laaban weli waa ku taagan yahay. waxaan kaloo idin sheegayaa masiibada ka weyn ma jirto waa ta isla qaadana soo maahay in qofka caqiidada laga galo oo dadka Soomaaliyeed qof ahlu tawxiid oo adigu gaal u itiqaadiso masiibo ka weyn ma jirto soo maahay. ninkii saas ku dhiirigeliyay dad badan ayaa fikirka Umul waxay ugu jiraan qabriyaal oo khawaarijtu ku leysa. kuwa badan agoomana oo maanta jooga, kuwa badan ayaa tabca karin oo dhaawac culus qaba,
kuwa badan ayaa gablamay oo wiilkoodii ama zawjkoodii ama zawjadoodii ku waayay dadkii ninka noocaas ahaa oo weli ku taagay oo aaminsan inaan gaalanahay inuu hortayna soo istaago masiibadii asugu oo keenay mid ugu weyninka badneed oo keenay oo yiraahdo weyn kala warama waa ayaan daro waxa ayaan daraa telefishinka qaranka oo codka dawladda ah in uu soo dhigo ruux la og yahay inuu dhiirigeliyo u hay khawaarijta ruux la og yahay inuu suuf u yaqaan ahlusunna wal jamaa gaar inay yihiin inuu ka dhigo sheekh weyn oo birito muxaadaro jeedinaya dadka reer muqdishaawiga ah waxaan rabaa umul xadala inay raasay laftiisa umulow mays og tahay in badan oo reer muqdishaa ay qabri ugu jiraan kuwa kale Soomaaliyeed ugu jiraan fikirka adiga aad aaminsan tahay oo khawaarijtu ay fuliso mashalay ku ina laayay adigana macalinka u heeday ma biliga ka soo laabat adigoon cadayn in suufiyada ahlusunna wal jamaa marka galo yaqaan ee suufiyadu muslimiin inay yihiin adoo ictiqaad adoo cadayn adoon ka tooba keenin adoon cafis dadban ina hortayna timaado waa ayaan daro reer muqdishaawiga waxa ina iraado muxaadarada uu qabanayo ninka la yiraahdo umul birito sida uu sheegay telefishinka qarankuna uu baahiyay ha isku hategina sababtu maxay tahay ilaahay quraankiisa wuxuu ugu leeyahay wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun dhulmiga ha u ilana kuwa zalimiinta oo naaru aydin taabat ظلم ظالم حاليا ظلم محاوي إن الشرك لظلم شرك هو ظلم إلهي قرآن سعقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أنا كعلماء أنا واجب أنا صار حق إنا عدينا نقل ربع حق أن عدينا وحواي ذاتك أهل البدعة أهل الضلالة بدعة ظاهر سنايا نبي عليه الصلاة والسلام حقرا مسلمين تكو قال محرومين إن الله ليحن هدي الله إيشو وحقور الآذو وجمعور البضيو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ومن كلي أنكم إذا سكرنا مركو توبدي سإعلاميو مركو وحو فسهادي أو سمايو وعارض مركا إن دتك Soomaaliyeed ku baraarujiyo ninka muxaadarada bixi qabanaya waa nuucas waa ninka nabiga kaleey salaatu salaam xaqiray waa ninka fikirka khawaarijta u sheekha waa ninka dad badan ay qabri ugu jiraan kuwan u dhaawaceen kuwan u hanti beeleen kuwan hadda u handadan yihiin oo ahlu sunna wal jamaa oo ahlu dariiqa ah dawladda Soomaaliya rabaa inay ku baraarujiyo telefishinku waa meeshii aan ummadda ka hagaajinayno telefishinku waa meeshii khawaarijta lagu diriraay telefishinku waa meeshii aqoonta sax laga faafinayo حكفى فين عقيدة فاسدة حوايا حادي الليل هنغنى قف كستو كوفي العلماء نود هنا قف كستو قميص وتواشيخ هنا وإنا كالبرتان قف كأمد سحر وشيء جاي أو مواقف توس إنا يسبدلين أو دين تيسا كل أوصل إيا قف ك مال بجيت فورا وإنا كالبرتان مرة من عقيدة جورجورة عقيدة ثابتة أو كتاب يسونا كتاجن أيام رمنا وحأنت أقول لنا النبي وحولي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله لعنة داس أنكو كعررين أيام حان ديدينا ومدين إن لفس هذه أنكو تاجن وإذن شاقني اللهم هل بلغت بلحنا نواجه سينا مركا إن يسن الإيوح لميذا التلفزيون كقرنك وأقولان وهو مغلسي ما دام أو يمشي ومدى لقها نونيناي الشعب كان وأوشي يا dadka ahlu bid'ah dhageysanay umulna waa u nasiixeeyo waxaan ku yiri walaalo horta marka ugu horeysa adiga toobakeen laftaada hagaaji ka bacdi noo imow wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala